السلام عليكم. بريدة سنجود هان دكينا هالشرف كاي مدرسة تنس كويمد. وحفلة برنامج كدور كان كقادن دونا وحكوسة بسنة هاي إسدحجل كبرشة الدور كأو كقادن كرو ديبوديس كودن كا. أنا جماعة عيجو نعيمة وانقرنة. قبل سومالي ذرير الكيس أبان هاي. إن بدنا إن تم فديدا أما دنيا دعالة ذي جدا ونيسا. oo itaqaana hadaynaano maanta Soomaali galbeed baan ka soo jeedaa way yaabi doontaan laakiin hayaabin tusaale noola adiga ku qanciya ayaan ku siin doonaa kadib waxaad isweydiin doontaa adigu maxaad meel kaliya u joogtaa Soomaaliyeed oo lahaan weyde aniga waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa aabahayna wuxuu ku dhashay dhulka Soomaali galbeed awogay aabahay dhalayna wuxuu ku dhashay dhulka Soomaali galbeed ku dhaqmay ku dhintay oo ku barbaaray si taasi lamida family aan anigu ka dhashay asal ahaan badankooda wuxuu degan yahay waqooyiga galbeed Soomaaliya gaar ahaan waxay kamid yihiin reeraha waaweyn magaalada Hargeysa deegaanka u leh isla si taasi lamid ah family-gaygu wuxuu kamid yahay dadka Soomaali galbeed qayb dhan dega oo deegaan u leh qofka soo annaka naga mid ah marka uu yar yahay inta uu dugsiga hoose dhexe ku jiro waxa loo diray dhulka Soomaali galbeed waxa la yiraahdaa bugaag iyo qalimaan baa loo dhiibaa dhulka maadaama idinku leedihiin dadkiisa deegaanka dhaqanka iyo xoolaha wayna soo barataan aniga kamid ah dhalintii barbaartiyada loo diri jiray barta la geyn jiray waxaan xasuustaa abahay oo Khaliij al-Arab ku noolaa xilliyadaas sanad dugsiyeed kasta marka fasaxa la gaaro waxana loo dhiibi jiray bugaag iyo qalimaan waxana la geyn jiray dawlad iyo cid dhulka loo yaqaan Soomaali galbeed degto kadib waxa la oran jiray hadad wax fiican soo baratiin dhulkiina kamid ah wax fiican baan idin sameeynaa maalinkii oo dhan waxaan ku jeedi jirnay oo ku mashquulsanaan jirnay dadka deegaanka iyo inaanu barano sida dhulkani u yaalo qaab ahaan iyo qiimihiisa habeenkii gobolku markuu dhaco oo guriga nimaadno awoogan wuu weydiin jiray wixii aan anagu maanta soo baranay sheekooyin badan ayuu noo sheegi jiray kadib waxaan xasuustaa oo markii aan garaad yeeshay maskaxdayda ka go'i waayay wax badan inaan isweydiiyo sabab u noqday oo mar walba oran jiray awow dhulkan waa dhulkeeni annaga geerideeda ka gadaal waa halkan u dhaxal idin kaga tagi doono sidaas daraadeed hadda Itoobiya idinku haysata mana jirto awood Soomaaliyeed oo adagoo lagu soo dhicin kara wayse imanaysaa ama noolaada ama dhimashadiina ka gadaal ha ahaato waxaan si idinku dardaaraya naftu haday qaarka dambe idinka soo baxdo oo intan ka nooshiin ha u ogolaanina cidda idinku haysata inaad u hibaysaan waayo waa dhulkiini wana hantideeni muddo dheer ka gadaal markii aan qof isku filan wax badan fahmi kara noqday waxaan isweydiiyay maadaama oo family anaga naga mid ahay ay channel degan yihiin afgooye degan yihiin baydhabo degan yihiin dhismayaasheeni ka dhisan yahay bal qofka Muqdisho jooga ee reer Muqdisho ah hadii duruufo ayna saamaxayn inuu halka maanta dhisan karo maxaa u diidayo inuu ceeri gaaba dhisto oo dhulka binaysto oo sidoo rabo ugu noolaan karo ilaa waxaan u baahanay inaan isku tiirsanaano marar badan dhalinyarada marka aan la hadlayo waxaan weydiiyaa warar horta wali ma isweydiisan golaha shacabka ummadda Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed way ku dhanyihiin maxay ugu dhannahay kadib waxay ku weydiinayaan ay ku oranayaan qofka Soomaaliga ah ee westernka joogaba xil buu ka qabtaa ee adal qofka westernka jooga qaxoontigu meesha ku yimid dib u deganaanshaha la siiya kadib oo ogolaanaysa inuu xil meesha ka qabto laakiin anigu intaad Muqdisho timaado dhalasho kuma siino halkan ayaad joogtaa Soomaali dalkiisa matalay ayaa tahay taasi waxay tusaale nool u tahay horta dhexdeena inay jirin wax xuduud la yiraahdo oo inaga ina dhex taala waxa kale oo tusaale u soo qaadan doona sheeka aniga igu dhacday mara Afrikada mariyo shaqo u maraayay anigu dal joog ayaan ahay baasaboorkaygan sitaan oo Soomaali xilliyadeeda shaqada isaga ayaan ku bartaa waxaan xasuustaa airport kamid ah airport Afrika ku yaala markaan marinay qaybta passportska lagu jeegarinay soo istaagay gabadhan shaqo u wada soconay South Africa ka timid ayaa gadaashay taagan oo ka soo horeeyay ninkuu fiiriyay passportkayga dhinacoo istaajiyay gabadhii dadkii loo iska dhameysteen su'aalo badan ka gadaal u weydiiyay
wan iska maray meeshii kadib waxaan isweydiiyay anoo gabar Soomaaliyeed oo qurux badan oo Soomaali ka weyn ah maxaa ku mutaystay inay saas igu dhacdo ka gadaal waxaan ogaaday dalkeeda iga sharfan aniga dalkayga karaamo dunida kuma laha waxaa go'aan ku gaaray maalinta kadib maadaama aanan madaxweyne ahayn maadaama aanan hantiile ahayn oo dhismo badan Soomaali u dhisi karin maadaama aanan wax inta waaweyn dadku arkayaan sameyn karin inaan u hadlo boqolaal Soomaaliyeed oo codkooda aan kor u qaadi karin oo aan tuso dhulku waa dhulkeeni waana dhaxal awoowad inagu ma kala lihin barbaarta Soomaaliyeed iyo bilcaanta Soomaaliyeed ma dhalinyarada baan ilaahay si u dhayahay waxaan la hadlayaa cidii dhalinyarada dalka mustaqbalkeeda ay u taalo odayga 60 gaari lama hadlaayo haddii waqtigaan ka faa'iideysan haddii adigu aad ku dhalatay Soomaaliya oo burbursan adigu dambi kuma lihid awoyaasha ayaa ku daray ilaahay ka sawaabiyay ahaydba laakiin dambi waxaad ku leedahay ilmaha aad adigu dhasho laftiisa inaad ogolaatay inuu isaguna halkan ku soo barbaaro wax walbaad awoodaa wax yar oo la sameeyo oo la qaban karo wax weyn bay noqonayaan markay isku tagaan ma anigu waxaan ilmahayga uga sheekayn doonaa wixii anigaba la iga sheekeeyay qiimahoodaba aqoonin waa maya jawaabtu waxaynu u baahanahay dhalinyarada Soomaaliyeed ahaan inaynu nidhaahno qof kasto inaga mid ahay muxuu qaban karaa muxuu sameyn karaa oo siyaasad ka madax bannaan anigu siyaasiyad ma shacabka dalka lahaa baan ahay waajib ayaa iga saaran qaybteeda inaan ka qabto adna waajib ka saaran idinkan waajib idinka saaran waa taa sababta aynu u nahay dad yar oo dareemi kara xanuunka dhulkooda ka jira iyo sidii ay u hagaagsan lahaayeen guntiga gabagabadii waxaa ku soo koobaya tix idinka idin canaanan doonta idinkumaan cuslayn waaba jiifta yar waxaan rajaynayaa inta fahamtaan su'aalahaas jawaabahooda inaad idinku baadhaan dacanaya dadkaygoo afa aan dhamaaneyn maxaa loo dhawaystaa dheefta looga cararaa waynagaa dhammaanaye dhagartiyo colaadaha maxaa loogu dhaataa ubaxii dhalkaygoon weli dhaaya kala furin maxaa loogu dheelaa isku dhalad haddaan nahay isku dhaqan haddaan nahay isku dhiig haddaan nahay dhulku yahay dhulkeenii iyo dhaxal awoowaad inta dhaawac tiro badan dhalinyariya waayeel hooyo dhalaanba leh bal maxaan u dhowrnaa damirkeemiyoo dhumay dhulkeenoo barwaaqo ah wabiyadu isdhaafaan baduhuna ku dhigan yihiin barriguna dhammaantii dhaayaha u roon yahay bal maxaa dhasheenii dhul shisheeye geeyoy dhalashada u doorsheen dhismayaasha reer Yurub nin leh baa u dhididaye maxaa loogu dhololaa dadku may dhaqaaqaan dhulkan may ku dhaataan gobanimada dhowraan hantidiisa dhowrtaan dhammaantood israacaan dadku may dhaqaaqaan dhiilada colaadaha dhibaatada afmeeraan wixii dhumayna raadshaan calankeena dheenka ah cirka dhalanka uga eeg xidigtuna ku dhigan tahay dhammo wuxuu ku leeyahay dhalintii dalkayga ilaa dhalashadiinii dhul jiif baan ahaayo weli idinkamuu dhalan haliyay aan ku dhaatiyo dhaxal adag mid reebe miyaydan dhammaantiin qiimahayga dhaadeen dhalintii dalkayga dhulku wuxuu ku leeyahay dhibka kayga bixin laa hantidayda dhaqan laa cadaawahayga dhicin laa dhalinta ida weeye dhammaantood maxaa helay dhulku hadiyadu ayuu waa dhaxal dadweyne haddaan wada jir loo dhisin dhismayaashii naga dumay dhammaantood la nooleen dhigeen inaan u faanaa waa waxaan dhacaynine hadal iyo dhammaantii dhambaalkaygu wuxuu yahay aynu dunida dhaafne qaran adag ma dhidibna Soomaaliya noolaas. Salaamu calaykum.